أنا هذا بروح أرضي وحبراي أنا وأنا شعب عاد ما نقل dugsiga soo dhexe ma bartay ما يدكس هو صدق أنا ما نبرر هي إلهي بالله كاشضي way ku duldulaysaa كوير تطول إذا أوكي على مية كلا وترى دورنا هم كحيما ندي نبو والله على كحولا كوشينا دورنا تلاقي والله على كحولا وأبرق الله حلو دورنا شري كينيا مركز تو قرصي ريال ريال تلافرة دولتنا غالية وكربوسة كعيا سيارة مالية والعاب من غريزة daawadayaal meel kastoo dirana TV ka daawanaysaan maanta waxaan soo booqanay halkan oo la yiraahdo Tayamaal oo ah maxad lagu barto farsamada gacanta sidoo kale arrimaha kala duwan ee farsamada gacanta ay dhalinyaradu ka faa'iidaan maamulaha iyo waliba aasaasaha xarunta ayaa waxa uu qoray book محمد صلب خليف انجينير صباح ونكسر سلو في عنتي ساكم كسب بوقضي بري هلا سكوين دبسي هاي لو كوري كويلا تاكا سوكا تسفقد حفلتي اسكول كلو يوسف بندقي قلت ميدان علم قبض aad baan kaaga madcelinaya taraaq dheer baad maanta soo gashay luqma aad ma soo caadi wax badan baad dadka u qabatay maxamed iska wararto aad baan fiican maxamed luqmaan maxad farax taymaal halkii maraysa hadda taymaal meel fiican bay maraysaa wax badan baa ka dambeeyay iskuulkii waan u balaadhinay arday badan baan soo saaray iminkana waxaan qoray buuggan la yidhahdo diiwaanka farsamada gacanta oon leenahay insha allah dhawaan inaan soo bandhigaan doonin haddii la yidhaahdo buugga farsamada gacantaad qortay maxaa ku duugan buuggan waxaa ku duugan wax fara badan luqmaana waxaad aragtay maanta waxaa laga yaabaa dhallinyarteenu way tahriibtaa markay tahriibaan waxaa lala soo hadlaa magafo wuxuu la soo hadlaa waalidkii waxaa lagu yidhaha lacag soo dir islaantii lacag ma haystee iyo aabbihii iyo gurigii baa la iibinayaa gurigii lacagtiisii baa la dirayaa ciyaalkii xaggan joogayna bilaa guri baa laga dhigay inankiina ama wuu dhimanayaa ama waa lasoo tarxiilayaa dhibaatooyinkaasoo dhan wixii lagu xalin lahaa ayaa ku duugan dhalinyaradu farsamada gacanta soo bartaan ilaa imisa arday iminka jooga iminka waxaa jooga dee 150 baa jooga ayaa iminka dhigta oo dhalinyaro ah maxaa noocyada bartay farsamada gacanta waxaan baraa laydhka biyaha makaaniga aluminiumka laxaamadda luqmaana macal waxaan ku soo kordhinay dadka maalintii shaqeeya bini'aadamku way soo xamaashaan qof kasta dadka shaqooyin kala nooc ama bacadla ha noqoto ama wastaad ha noqoto ama nijaar ha noqoto dadku markay maalintii soo xamaashaan habeenkii waxaan u diyaarinay qayb ay 2 saacadood lagu bariyo farsamada gacanta waayo qofku maalintii wuu soo xamaalinaya maxaa la barayaa markaa biyaha iyo laydhka iyo makaaniga iyo aluminiumka barinaa markaa way ku shaqaysaan 2 saacadood ka faa'iideystaan gelinka dambana waa la dhigtaa ilaa imisa arday baa ka aflaxay waxa ka aflaxay arday 2 tirin kale baan luqmaana waddanka oo dhan bay u shaqeeyaan gobollada oo dhan bay u shaqeeyaan qaar baa meherada furtay qaar baa iminka shirkado waaweyn u shaqeeya waxay u shaqeeyaan Sunpower Talasom shirkado waaweyn ee leerka ay u shaqeeyaan maxamed marka laga hadlayo farsamada gacanta dhalinyaradu shaqo la'aan bay ka cawdaan intee in leeg bay fursado shaqo ku heli karaan markay farsamo gacan bartaan luqmaano maanta waddankeena waxaa la yidhaha shaqo yaraan baa ka jirta shaqo yaraan kama jirtee xirfad yaraan baa ka jirta maanta waad ogtoo waddankeena marka laga tahriibo innagana waa laynoo soo tahriibaa shaqooyinkii ka jira waddanka 90% waxaa ka shaqeeya dad ajaanib ah maxaa koosgareeyey ninka ajaanibka waxaa la yidhi shaqada uu garanaya waxay la jaanqaadaysaa tan maanta suuqa ka jirta marka waxaan u baahannahay buuggan waxaa ku duugan in muwaadinka lagu hubeeyo waxa uu garanayo ninka ajaanibki oo shaqadii uu qaban lahaa ajaanibku ninka muwaadinkii uu qabta dee qofkayga sidoo kale ahoo aan weligii baran farsamo gacan muxuu ka faa'iiday buuggan to akhristo wuxuu ka faa'iidayaa muhiimadda ay leedahay farsamada gacantu marka hore ka faa'iidaya tallaabooyinka uu qaadayo isku dayga uu samaynayo waxa uu bulshada ku soo kordhin karayo waxlaaya fara badan baa ku duwan buuggan oo waddanka heer qaran weeyaan buuggan waxaan doonaynaa in dhammaan gobollada waddanka oo dhan lagu soo bandhigo macluumaad 4 sano maana baalkan ka shaqeynayay anigoo xaggan xirfadii ka baraya dadka ayaan maalinba in ku dareeyay de maantana finalkii uu taagan yahay alxamdulillaah rabbil caalamiin degmooyinka magaalada Hargeysa buugga waad geysay madaxdoodana waad la kulantay maxay ka ahayd horta luqmaan waa su'aal fiican aad baad mahadsan tahay sagaalka degmada Hargeysa gudoomiyaasha sagaalka waan la kulmay aad bay soo dhaweeyeen halkana dhammaan dadka salaamaya dad wanaagsan oo mas'uuliyiin ayaan la kulmay gudoomiyaashaasi waxay matalayaan populationkii deganaa xaafadda iyo bulshadii bay ay u yihiin gudoomiyaan buugga muhiimadiisa iyo culayska uu leeyahay iyo faa'iidada ku jirta ayaan u balaadhinay oo ugu tagay iminkana insha Allah in qaybo badan bulshada la kulannay
qaar badan oo kale oo naarsiina wala kulmi doona insha Allah haddii ay baqadaro marka ninka dhalinyarada ahay uu wax baranayo wuxuu ku fekeraa jaamacad gal wax baro deetana shaqad heli doonta hadhow shaqo la'aan ku soo dhaca badanka farsamada gacanta dhalinyaro wuxuu baran weydaa waa hawsha adag ee la qabanayo iyo kharashka oo yar baa la yidhaahdaa taas adiga ma ku muuqataa luqmaanow iminka maanta saynu wadagnahay jaamacadda waxaa lagu gaaraa 16 sano soo ma 12 sano iyo 4 sano waa imisa 2 sano bila camalna ku dar state soo ma state tobanka anu hadda 2 kun arday wax baray anuna jaamacad maan gelin 2 kun arday mid heer meel gaaban kaga baxay iyo mid tababar ka dhamaystayba 2 kun arday baan ayaan wax baray annaga wax baan bartay waa intii qofku jaamacadda uu ku dhamayn lahaa ayaan intaas qof wax ku baray marka farsamada gacanta anna wax ku bartay marka anu jaamacadda maan gelin laakiin farsamada gacantaan bartay 16 sano 18 sano halka ku lumi lahaa anu dhalinyar badan baan uga faa'iideeyay maantana si iskooda u shaqaysta kana maarmay inay cid caawiso hay farsamada muhiimadda faa'iidadaas ay leedahay farsamada gacanta marka laga hadlayo marka tiri jaamacad maan dhigan dadku waxay isweydiinayaan dugsi hoose dhexe ma bartay Maxamed ma dugsi hoose dhexe ma baran hay qoraalka sidoo bartay qoraalka waxaan u bartay luqmaanow inaad buug qortay ma aha inaad jaamacad ka baxda ilaahay qofku wuxuu siiyay karti kale awood kale si kale uu ilaahay siiyay iyo khibrad kale in qofku wax barta ma aha inaad intaad buug jaamacad inaad shahaado qaadato ma أنا أنت من قاضن أنا ضربوك أنت على ka kooban 250 ka page waxaas wuxuu ku duuban ilaahay baan la kaashaday iyo dad baan la kaashaday adiga arkay maanta finalkiiba maraya wax ma qorto ma luqmaan qof aan wax barashada kale ku fiicnayn laakiin ku fiican inuu farsamada gacanta bato luqmaan waxa jirta inaan waxna qorin waxna aqriino miyi ka yimaada kii dugsi sare ka baxay isaga markaba ka fahmay og farsamada gacanta marka uu fahmay farsamada gacanta imika kuwa ugu badan ee meheradaha furtay waxay u badan yihiin dad miyi ka yimid oo aan wax barasho kale soo dhigan laakiin xirfadii markiiba fahmay qaar waxa jira marka bareefana habeenkiina bareefa dhigta maalintiina farsamada gacanta bar qofkaas aan ugu fiican labadaba yaqaan marka laga hadlayo farsamada gacanta qofkii shaqadii ku dhex baranayo wuxuu qabanayay yima kharash yar wala tan kharash yar kana faa'iido badan luqmaanow bal 16 sano oo nus saac iyo iskuul iyo jaamacaduna aad hawshiisa wado maalinta dambana lagu oranayo inaan shaqo looma hayo 9 shahaadana guriga u yaalaan leerku haduu ka baqtayna uunan ka waran leerka shidan karin qasabada biyo hadday xumaatana uunan saa u xidhi karin oranaya waxaan doonayaa farsamo yaqaan 18 sano nus saac jaamacad iyo dhar iyo kharashka eeg 7 bilood inankii wax bartay oo qura 7 bilood qura maanta isaga naftiisa baan anfacay qoyskooda baan anfacay qaranku wax ku soo korinaya way manhaj ma jira aad raacdo oo qoran oo ardaydu waxaad barayso aad ku qortay manhajka waxaan raacnaa wasaaradda waxbarashada qaybteeda farsamada gacanta buugaagti baa noo yaala marka kaasaan raacnaa ka waxbarashada oo tayamaal halkan in soo gaadhay waa iskuul weyn oo tayamaal liisan buu ka haystaa wasaaradda waxbarashada liisankii baa shahaado la aqoonsan yahay baan u bixinaa oo de ardaygu meel kasta ku tii karayo iminka qaar waxaa jirtay tayamaal dhigan jiray oo tahriibay waxa lagu yiri maxaad garanaysaan ninkii ka yiraahdo farsamada garanaya marka bada uu shaqo tagay ka kalena de waxa ma garanayaba marka farsamada gacanta ninka ba xitaa kii tahriibay anfacday alaabtan halkan in soo gaadhnay halkan waa maxay luqmaan halkan practicalka lagu qaataa halkan maxaa lagu bartaa bahaladan maxay kaliya bal noo kala sheeg kuwan waxa lagu googay aluminiumka luqmaan aluminiumka lagu jiraa luqmaan hadaan tan imika tan hadaan shidno aluminiumka taa lagu googaya aluminiumka saa loogu jiraayo way ku duldulaysaa way ku yar duldulaysaa aluminiumka lagu jiraa aluminiumka lagu jiraa waxaasoo dhan aluminiumka lagu gogoyaa mashiinadan dhan ardayda furfurtay waxaan oo dhan iyaga furfuray kan oo kale waxaasoo dhan intay kala dhidhigaan bay haddana isku celiyaan maxaa tiri mashiinadan ardayda furfuraysa mashiinadii baabuurta miya waa kuwii baabuurta kan waa gearbox waxa weeyaan intay ardaydu furfuraan ayay marka dambana isku celcelinayaan oo adiga arkaya kuwa program la soo qaadna
markaa farsamadii gacanta waxba ka dhinan bay halkan arday ku bartaano makaanigii laydhkii iyo start machine ay arday ku bartana kaasna imika u istaaraya kaale Luqmaan waxa mashiinkaas muxuu qabtaa markaa kaasi muxuu qabtaa ardaygu intay furfuraan bay hadana xidhaan mashiinkii haa waay waa ka kana oo waxbaad soo saari kartaan xitaa haddii qalabka aad heshaan haddaan qalab helno waxaan samaynaynaa gawaadhi iyo waxaan samaynaynaa iyo warshadaan samaynaynaa wax soo saara mashiinkan waa kiilarka caadiga haa waxaan doonaynaa imika qaybta baynago oo calabka xoolaha ku shiidnaan doonin haddii la yidhaahdo baaladan calabka xoolaha waa bergal waxaa loo doonan jiray Kenya ayaa loo doonan jiray imika annaga doon inaan samayno calabka xoolaha maarata markay abaaru dhacaan ayay calabka xoolaha rilqaan halkan baanu daynamo ugu xidhaynaa kadibna halkaasaan ku xidhaynaa barta ayana fadada ugu xidhnaaya saasaan ugu xidhaynaa kadibna wuxuu noqonayaa mashiin calabka xoolaha shiida ayuu noqonaya Luqmaanow haddaan qalab helno waxaanan samayn karin ma jirto wax kasta oo samayn karna maanta waxaa naga dhimanoo dee qalab baa naga dhiman haddii qalab la helo waxaan dibadda laga keenayo uu yaraan lahaa annagaa samayn lahay marka waxaad leedahay farsamadii baad idinku samaynaysaa haddii aad qalab heshaan idinkaa farsamadii samaynaya haddaan qalab helaba Luqmaanow dee waxaan maanta waddanka laga soo dejiyo dhan wan anaga ikhtiraacii lahaynba waay hay alaabta halkan taalla alaabta gaari la furfuray baa mise mashiin alaabtan waxa weeyaan waa bahaladaas laga furay mashiinada makiinadaha ardada intay furfuraan bay haddana xidhaan waay wakaa marka ninka waxaan bartaa xitaa gaari hadduu wato uma baahna hadhow toole wuxuu baahanaya marka bartaa koox xun intuu baarkin ka dhigo ayuu hoos ka leeyahay dadkana waa anfacayaan masha Allah Maxamed maxaa kaloo ku xiga laydhkiiba halkaa iga muuqda laambado badan baa ku yaala halkan practicalka ku qaata waxaa soo xadhkaa waxaa googooyey wax alla waxaa xadhig meesha yaala baleega la ridqay ardayda ku baratade xadhigay ridqaan qofku markuu practicalka baranayo marka la doonayo in practicalka si fiican u barto waa inuu helaa wixii uu ku baranayay hadduu shaygii waayo waxba ma baranayo ardayga iminka 10 cisho jooga halkaa nin wuxuu iska noqonaya farsamayaqaan waayo wuxuu helayaa qalabkii isku dhameystiran baa hayaa qalabkii wax lagu googooynay wax lagu baranayay ayaanu soo qaadnay de inta naga dhiman doonayna inaan warshad sameynana insha Allah waan heli doonaa hadii Allah yiraahdo farsamada gacanta haa wax kasta oo waxaan lagu sameeyay waa in inagu inaga yaraada wax dibadda laga keenayo waa inay bataan wax soo saarka gudu waa inay bataa oo ka raysanaa de wax soo dejinta faraha badan wax yar waa in naga baahnaa dibadda oo injineer farsamayaqaan fara badan noo soo baxaan mar kasta oo farsamayaqaanku bato dakhliga gudaha badanaya waxa badanaya wax soo dejinta wax soo saarka gudaha ayaa badanaya canshuurta dawladda badanaysa dhaqaalaha kor soo kacayade mar kasta oo ganacsiga yar dhalinyarta loo furo dawladuna dhaqaalaha kor buu soo kacaya wasaaradda maaliyadda lacag bay noqonaysaa marka saacadii leerka ku xiran sidoo kale waxa ku xiran halkan marka u horeysa ee ugu horeysa yimaadaanba halkan marka ugu horeysa yimaadaanba arday lagu baraayo saacadahan iyo waxan waxa weeyaan si uu ardaygu uga baqan leerka ayaa marka hore lagu sii daayaa meesha goor dhawaad tan sida imika waxaas waxa weeyaan waxaan ugu talagalnay tusaalaan waa gurigii baan ka soo qaadnaa gurigii oo meeshan ugu nashqadaynay marka ardaygu marka horeysa wax la barayo wuu qalqaloocinaya laakiin marka dambe ayaa systemka loo fadhiisinaya marka hore isaga ku baranaya waa ta lagu barayo marka dambe wuxuu keenayaa dadana sida kuyugu jiro de nadiifade ardayda Luqmaan waxaan siinaa macallimiintu waxay geeyaan guryaha la dhisay maaragtay ayay si dhaarateena macal marka isagoo halkan practicalka ku qaatay haddana gurigiiba si toos ah ayaan waxaan raacinaa shirkadaan raacinaa buuggan haddii waxaa soo qiimaan leeyahay madaxa sare qaranka madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale ma gaarsiinaysaa Luqmaan waxaan doonayaa madax badan oo qarankana waan gaarsiiyey madax badan oo qarankana waan gaarsiiyey madaxweynaha wasaarahaas waa su'aal fiican oo aad weydiisay madaxweynaha ma gaarsiinaysaa madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynahan maanta xilka haya Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro labada waan gaarsiinaya insha Allah labada waan u geynayaa waayo waan ugu dambaysiinaya markaan iminka meelahan kala soo marmariyo madaxda kale ka hooseysa labadoodan ku soo guraanadaya kadibna markaas la soo bandhigay hadii la yiraahdo halkaad higsanaysaa Maxamed waxaan higsanayaa Luqmaanow 2021kii cilmi qaadba wareysiga qaaday aad baan kaaga mahad celinaya
waa 12 kilomitir bay bartaa iminkaan taaganahay u jirtaa halkaad bariga wareysiga ka weyn baad luqmaan 12 kilomitir halkaad wareysiga ka qaaday ayay noo jirtaa bartaa iminkaan taaganahay oo masalliya saan barigaa kuu sheegay waxaan ku yidhi markaan kan casri ka dhigo dhammaan gobollada jamhuuriyadda somaliland inaan ka furan doonaya iskuulka farsamada gacanta Tayamaal insha allah markaan luqmaanow saad arkaysaba dee ardaydiiba halkan fadhida waa kaa macalinka tiiriga u dhigaya dee marka halkan tiirigiiba ku dhigtaan practicalkii iyo tiiriga oo saan u dhignaa si ardaygu markiiba uu wax u fahmo marka ilaa habeenkii iskuuladii caadiga xilligaa ma shaqeeyo jaanjoofer waa shay kala bedela laba dab buu kala bedelaa taloo kale gurigaaga waxa soo gashatay sunpower iyo tii kala soo gashatay TEC ayaa soo gashatay marka labada leer waxaad ugu tala gashay hadba marka uu muxuu ahaay mid ka tagay kala u bedelato jaanjooferku single face waa leeyahay three face na waa leeyahay two face na waa leeyahay maxamed make up baan arkayaa iyo dawaarlaha miyay ku jiraan dumarkaan kuwa baraa ma make up ka dartaa make upka xinaha cunta karinta decorationka allah musta'an wax alla wixii dumarka ku saabsan aanu baraa macallin kulli baa tahay markaas ya maxamed luqmaan wax alla wax halka ku sawiran arday halka way shaqo tageen waxa soo sawiran waa arday berigi aad meesha aad ii timid waxaasoo dhan way wada shaqo tageen dhammaantood qaar meherada furtay iyo qaar shaqeeyaba ayay noqdeen luqmaan berigaa dee adigoo jooga Djibouti oo adigii dhammaan waxa loo warbaahin adaa ii xiriiriyay adaa bartaa keenay aad baan kaaga mid celiyay luqmaan abaalkaaga adiga ma soo goobi karayaba waan ku faraxsanahay safarkaas aan ku magnaayo in ku raagay mooyaane waan ku faraxsanahay adigii madax badan igu soo xidhay madax badanna markaad tiriye iskuulka ka qayb gala cudurdaar bay qaar badan oo dee meel hawla lahaa laakiin qaar badan oo la hadashay ayaa noogu yimid bartaada 12 kilomitir luqmaan waan kaaga mid celinaa weligayna ma ilaabayo abaalkaad bariga noo gashay waa caadi maxamed intaa ka badan shaqo fiican baad qabatay dadka wax soo saaraysaa intaa ka badan baad mudan tahay maxamed iskuulka halku ku yaala iskuulku wuxuu ku yaalaa masallaha masallafiyuban in yar ka soo xignaa dhinaca hawd laamida siinay buu soo eegayaa xafiisku laamida ku jeedaa markaa dee waa bartaa luqmaano aad baad mahadsan tahay waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa wareysiga aan la yeelinayay maamulaha iyo asaasaha dugsiga Tayamaal ee magaalada Hargeysa waad mahadsantiin daawadayaal markasta naga daawanaysaa